نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في العقيدة، waxaynu war kooban ka sheegi doonaa masalada ku saabsiisan siraaca ama loolanka legdanka nafta iyo udhexeeya shahawaadkeeda, inagoo adeegsan doona in sha allahu tacaala qisatu aadam iyo qisatu yuusuf calayhim assalaam. derska koowaad ee maanta waxaynu adeegsan doonaa qisatu aadam. mawduuca kani muhim buu aada u yahay, sababtu waxay tahay haddii aynan nafteenna ka guulaysanin cadow kama guulaysan karno. qofka awoodi kari waaya inuu nafta bayna janabay, nafta dhexdiisa ku jirta, inuu xukumo, inuu dabdin karo, inaanu sii daynin, qofka awoodi kari waaya cadowna iskama xakamayn karo. walidalik bay culamadu had iyo goor waxay tilmaamaan jihaadu nafs ama naftoo lala jihaatama waxay ku horeeyaa bay yidhaahdaan shaytaankaba intaan la iskaadhin, ama si kale haddaynu usii tilmaamna acdaada iyo gaalada intaan lala diririn. idan haddaynu rabno islaamka mustaqbalkiisa inaynu in badan ka fekerno oo inuu islaamku soo noqdo dunida tan mar dambe casiis uu ku noqdo, mid ka xoog badan le uu noqdo, waxaynu u baahan nahay in qof waloo muslimiba naftiisa uu ka guulaysto, ama se naftiisa uu xakamayn karo, ama se uu maamuli karo. nafta oo la tahiraa, la nadiifiyaa, waxay ka mid tahay usuushii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lagu soo diray. huwa aladi bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wain kanuu min qablu lafii dalaalin mubiin. ilahay wuxuu ku tilmaamay inuu rasuul soo diray, diinta dadka soo gaadhsiinaya, qur-aanka ku dul akrinaya. waxaa ka mid ahaa asbaabaha nebiga loo soo diray wayuzakiihim, inuu nafta taskiyeeyo oo uu xumaha ka faydo. ilahay wuxuu tilmaamayaa qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha. waxaa liibaanay qofka muhimadda ku guulaystaa inuu nafta hagaajin karo. sida awgeed waxaan leenahay mawduucu waa mawduuc muhima. naftu shahawaat bay leedahay, waxay jeceshahay baa jira, laakiin waxay jeceshahay in la xukumaa oo loo talin karaa waa mas'aladaba imtixaanku uu ku sugan yahay ee aakhiro ama lagugu abaalmarinayo janno ama lagugu abaalmarinayo naar, walciyaadu billah.
nafta ilaalinteedu iyo shaytaan inay lunto wuxuu adeegsadaa waa laba shay un, ima shubha oo qalbiga degta aw shahwa, inuu yahay shaki qofka uu ku rido, iyo inuu yahay qofka oo carbada ay ku dhaco, qofka oo shahwadiisa xukumi kari waaya oo kan boob, kan dhac, tan fuul, lacagtan ururi, waxan qaad, wax walba xaaraan iyo xalaal u kala aabeyeeli waaya. masaladani markaa waxay ku fiican tahay maadaama aan nidhi qisaynu ka dhex eegaynaa bal aadam qisadiisu siyaabahay qur-aanka ugu soo aroortay qaar kamida inaan akriyo. fi suurati taha ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala walaqad cahidna ila aadama min qablu fanasiya walam najid lahu cazma waid qulna lilmala ljannati fatashqa ina laka anla tajuuca fiiha wala tacra وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. qisada tan oo qur-aanka meelo kaga soo aroortay waxaa ilaahay tilmaamaya subxaanahu watacaala nabiyullaahi aadam in training la siinayey, waayo qur-aanku wuxuu sheegayaa maxay iclaankii koowaad markii alla bixiyey inuu ku bixiyey in aadam loogu talagalay khaliifa fi lardi inuu noqdo. waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa. laakiin intaan dhulka la keenin jannadaa la geeyey. jannada waxaa loo geeyey inuu naftiisa garto meelaha ay u jilicsan tahay ee shaytaanku ka soo geli karo, meelaha shahawaatu nafsigu ay ka dhici karaan. walidalik baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaanahu watacaala walaqad cahidna ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu cazma. aadam ballan baan ka qaadnay baa ilaahay leeyahy, ballankii waa ilaabay ama waa dhaafay. walam najid lahu cazma, go-aan adag kamaanan helin baa laleeyahy subxaana watacaala. caziima ulilcazmi min arusul kamuu mid ahayn. insaanka marka wax la rabo inuu barto, haddii aada ugu sharaxdo theory yani nadariya sharaxun haddaad ugu sharaxdo asaanu waxa tajribaynin inta badan si fiican uma garto. masalan haddii mid idinka mida lasoo qabto oo la yidhaha waxa la rabaa inaad laaciba kura noqoto, kubadda saasaa loo cayaaraa, saasaa la yidhahdaa, saasaa loo laadaa, cagta halkaasaa lagaga dhuftaa, markay halkaa marisa saasaa la yidhaha, madaxa saasaa loogu dhuftaa. intaa khabiir ma ku noqonaysa? laaciba kura ma noqonaysa? diinta deris lagu fadhiisiiyo lagu sharxo kubadda sida loo cayaaro waa maya. yani caqliya waad fahamtay sidan loo laadiyo, saan loo ordayo, saan wax loo jirayo, saan loo dhigayo, taktigeeda iyo cumuuman waad fahamtay, laakiin nadariye khaliya laguma noqdo maxay laaciba kura. laabudda min tadriib, waa inaad heshaa tadriib aada qaadato oo aada tijaabiso, markaasaad noqon karaysaa maxay laaciba kura. weliba tadriibkaasi waxaa dhici doonaa inaad maalinba soo fiicnaato, maalinta hore aad gafi doonto, soo roonaan doonto, lagu tababaro, kolba gafkaaga lagu sheego. waxaynu odhan karnaa aadam salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay tadriib buu soo siiyey, la berayey naftiisa, la berayey cadowgiisa, la berayey meelaha uu daciifka u yahay ee hadhow shaytaan iyo nafi ay ka hagi karaan ee uu ka lumi karo. sidaa awgeed baa ilaahay janno geeyey subxaana watacaala. jannada markii la geeyey iyadoo la karaameeyey kadib ayuu janno tegey. ilaahay wuxuu u sheegay ibliis kaasoo maaragtid baa ilahay yihi cadow buu ku yihi ina hada caduwun laka walizawjika falaa yukhrijanakuma min aljannati fatashqa. ibliis adiga iyo haweentaadaba cadow buu idin yahay baa ilahay yihi, jannada yuu idinka saarin
oo fatashqaa aanad adigu markaa dhibaatoonin. waayo jannada waxaad ku leedahay baa la yidhi inaanad gaajoon, inaanad qaawismin, inaanad haraadin iyo inaanad kulayloontoona, intaba jannada waad ka helaysa. ama haddaad iyada ka baxdo intuba way iman doonaan. gaajo iyo haraad iyo kulayl iyo wax oo dhan waa la arki doonaa. weliba dee adaa mas-uuliyadda qaadaya la tilmaamaya aadam haddaatay oo fatashqa yani lama odhan fatashqa baa la yidhi, adaa markaa dhibtu ku raaci doonta. ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya subxaanahu watacaala aadan in la yidhi wayaa aadam uskun anta wazawjuka aljanna fakula min xaytu shi'tuma walaa taqraba hadihi shajara fatakuna min alظaalimiin fi suurati alacraaf. ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu watacaala in aadam la yidhi jannadaa cun, waxaad doonto ka cun, wax kaa mamnuuca jannadaas inteeda kale ma jirto halkaa geed mooyaane. waxa aada u baahantoo kalena ma jiro. laakiin naftu hal geed oo aanu garanaynba wuxuu yahay ayuunbaa hunguri ka gala. janno dhan oo wax kastaaba ku yaalayn baa la yidhi waa fasaxe iyada saa doonta u gal, laakiin faqad geedka kan isaga ha cunin. geedkii ayuunbaaba la qurux badnaaday, la macaanaaday. waa hal geed, halkii geedun buu noqday waxa lagu itixaamay. hal geedoo kaliya ha cunin, waxa kaloo dhanna waa kuu fasax ee meeshaa doonta ka gal. ilaahay wuxuu leeyahay fawaswasa lahuma ashayطaan ama fawaswasa ilayhi shayطaan fi suurati alacraaf iyo tah say usoo kala aroortay. waswasadu waa hadalka khafiga, waa sawt khafiya. shayطaan baa war u sheegay baa la leeyahy oo ku arrinka kan u tilmaamay. shayطaan arrinka kan markuu aadam u tilmaamayey, fitrada bini aadamka ee caadiga ahi xumaha ma aqbasho, fitrada caadiga. waayo ilaahay baa wuxuu leeyahy maxay, walaqad khalaqna alinsana fi axsani taqwiim. insaanka waxaan u abuuray baa la leeyahy subxaana watacaala fi axsani taqwiim, si fiican. fitradiisa caadigii insaanka xumaha ma yeesho, walaakin si uu insaanku xumaha u aqbalo waa in shayga laga duwa xumanimadii oo la qurxiyaa. waa in dib loo qurxiyaa oo aan loogu muujin qofka caqligiisa inuu wax xun yahay si uu aqbali karo. ibliis farsamadaas buu khabiir ku ahaa, inuu wuxuu yahay waxaan ahayn uu ku sheego. waana shayطaanka ugu weyne dunida iman doonee basharkiina tuu ugu xariifsan yahay. bal ee culamadu ay yidhahdaan magaciisaaba ahaa dajaal. waa fitnada ugu weyne laga digo min addajl. waxay culamadu yidhahdaan addajl ay atamwiih walkadb, waa wixii waxaanu ahayn loo ekaysiiyo dadka la moodsiiyo inuu caynka kan yahay. walidalik baa xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee xudayfa bnu lyamaan uu sheegayey, wuxuu nabigu ku tilmaamayay ina dajaalku waa soo bixi doona, wa ina macahu maaan wa naara, biyo iyo dab buu wataa baa ilahay yidhi. faama aladii yaraahu nnaasu maaan fa naarun tahr. kay dadku moodayaan biyuhu waa naar waxgubaysaa ilahay yidhi. wa ama aladii yaraahu nnaasu naaran famaaun baaridun cadb. idan waxaa ku jira maxay? waxaa ku jira qurxin, waxaa ku jira shaygii xumaha. dadka lama yidhaahdo masalan wadcigaynu maanta ku nool lahay, xumaha waxa haala min alammaana baa la saaraa, waa la qurux badnaysiiyaa. waxaa lagu leya isaga si discrimination ha samayni, qofku waa inuu xorriyadiisa lahaado. waxa la daboolayo o dhami waa maxay? waa ninbaa nin fuulaya. laakiin fitrada qof waliba waa ogyahay in haddii la yidhaha nin baa nin fuulaya inay wax xun tahay. bashar aan garanayni ma jiro,
laakiin wayna sidiisa loo odhana si kale waa in loo yidhaahda bini aadamku angal kaloo wax ka aqbali karo ama angal kaloo wax laga tusin karo waa in looga sheegaa oo aan looga sheegin angalka markiiba nafta bini aadamku ay kasoo boodayso. qadiyatu tasyiin iyo qurxin iyo khadaaca ibliis khabiir buu ku ahaa, waayo markii horeba sida qur-aanku inoo tilmaamayo waa kale qaala rabbi bima agwaytanii lauzayinanna lahum fi lard. wuxuu ku dhaartay inuu maxay mas'alatu tasyiin qurxin inuu samayn doono oo wala ugwiyanahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin, oo dadka oo dhanna inuu lumin doono addoomaha ilaahay uu doortay subxaana watacaala uu khaaliska ka dhigay mooyaane. ilahay waa ka tilmaamaya dadka anban doona waqayadnaa lahum quranaa'a fazayanuu lahum maa bayna aydiihim wamaa khalfahum. shaydaamaan ku dari doonaa baa ilahay yihi u qurxiya xagga hore iyo xagga dambaba. idan insaanku sidiisa caadiga ah xumaha ma aqbalo, laakiin xumaha waa in sawir kale loo yeelaa. aadam ibliis markuu yimi muu ku odhanin waxaan rabaa inaan ku lumiyo, laakiin wuxuu ka soo galay meel lagu tilmaamo nuqطati dacfi albashariya, meelaha bini aadamku u jilicsan yahay ayuu kaga bilaabay. wuxuu ku yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla, ma ku tusiya geedka waaritaanka, haddaad cunto waad waaraysaa dhiman maysi. xub albaqaa waaritaanka insaanku uu jecel yahay inuu waaro oo aanu dhimanin. qof wal oo insaano dunida kor jooga maanta intuu jiray way la yartay. hadii la yidhahdo in leeg ha lagugu daro waxba kama qabo. geerida dadku wuu wada necab yahay oo geerida dadku dib buu ka soo wada jooga. aadam wuxuu ka bilaabay markaasi shaytaan inuu ka bilaabo naftu meelaha u jilicsantay ee shahwatu nafsiga ah. wuxuu yihi maku tusaa geed haddii la cuno la waaro, hadi waaxida, iyo wa mulki laa yabla, iyo mulki aan isagu dhammaanaynba. labadaasaad isla helaysaa buu leeyay. nimco badan inaad hesho, boqortooyo, maal, xoolo, wax walba inaad hesho, iyo inaanad ka dhimanin. insaanka waxaa kamida markaasi wuxuu jecel yahay waarista, inuu waaro insaanku wuu jecel yahay. wuxuu kaloo jecel yahay insaanku aljaha walmaal, albruuz, inuu muuqdo oo dadka ka dhex muuqdo, oo jah iyo magac iyo boqortooyo iyo waxa kan uu yeesho farta lagu tilmaamo. waa min fitrati albashariya. inta ugu badanna kuwaasoo si xun loo adeegsadaa shahwaatu nafsiga oo dhami inta badan ka yimaada. kuwaasoo si xun loo adeegsado ayaa waxa ka yimaada waxyaabaha kan shahwaatu nafsiga lagu tilmaamayo intooda tirada badan leh. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu inaga daweynayaa markaa masaladatan. abuna aadam waa la tusiyey oo waxa la yidhi halkaa geedo qura mamnuuca isku taabanin. shaytaanna waa qurxiyey oo wuxuu ku qurxiyey inuu u tilmaamo geedkan haddii la cuno labadii waxa uu baahnaaba in la helayo. qurxintiisaasi wax kasta uu ku qurxin karo wuu ugu daray. waqaasamahumaa inii lakuma la min annaasixiin, waxa ugu dhaartay inuu yahay kuwa naseexaynaya mid kamid ah. keligii wax ma naseexaynaya, inta wanaagga u wado oo dhan bu isna waa waaxid min hadihi aljamaaca. dhaarna waa raaciye, maadaama naftu waxay jecleed ay tahay aadam dhaartii allaba waa ilaabay. oo ilahay waa kale walaqad cahidna, laamka hore waa laam ilmuwataa lilqasab, kii alle waa ilaabay. laakiin waxaan ibliis uu kuuqinayo tirada badan leh iyo naftoo meesha u jilicsanayda, haddii labadaasi isu kaa helaan khatar baad ku jirtaa. hadday labadaasi isu kaa gargaarsadaan insaanku khatar buu ku jiraa. idan insaanka meelaha ugu khatarsanee laga hogaamiyo waa shahwaati nafs, oo waxyaabaha naftu ay jeceshahay.
shayaaiinu linsiga maanta joogaana waa bahasha iyo jin iyo insiba isku daro waa kuway ku takhasuseen in la qurxiyo oo ama sida loo falsafadaynayo loo sharxayo ha noqoto ama waxyaabaha xataa scientifically baa la isugu dayaya in wax badan lagu cilmiyeeyo in laga dhigo nafta shahawaadkeeda haddii aad dabdido inaad xataa xanuunsanayso o waalanayso imka haddaad psychiatrist u tagto waxa koowaad ee kuweydiinaya mataqaana yani Freud fikradiisii baa ka dambaysa taxliili nafsi Freudkii odaygii Jarmal ee yahuudiga ahaa ee noloshoo dhan ku saleeyey inay sax tahay walidalik psychiatrist kastoo aad u tagtaa su-aasha koowaad ee kuweydiinaya waxa weeyaan xaas ma leedahay imise goor baad saga samaysaa waayo wuxuu rumaysan yahay haddii aad saga samaynin in waalidu xagga ay ka timaadaba naftan la cadaadiyey la caburiyey ee shahwaadkeedii loo diiday inay cuqad samayso nafsiya cuqadkaasina akhiiran inay keenaan maxay ina qofku waashaba ala hada yani asaaliib cilmiya la rabaa in laga dhigo waxaa la gaadsiiyey sida loo tasyiininayo loo qurxinayo inuu waxaan isra batay ilaahina subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegaya aadam meeshan trainingkaa lagu soo siinayo kow inaynan waaraynin waaristan jecelnay shajarat lkhuldiga loo sheegay inaan halkan lagu waaraynin adduun baa la idhaha waa meel la isugu itixaamayo laakiin arrinta tani waa shahwa nafsiya xaggee waa ragba min ragabaat albashariya waa doonista bini aadamka wax kamid a ilaahay meel kalu ku ballan qaaday doonistaa inuu kuugu dhamaystiro wa fiiha ma tashtahi lanfus wataladu lacyun meel kalaa lagu ballan qaado walidalik tan markaad joogtaan baa ilahay leeyahy subxaana watacaala wa kulu nafsin daa'iqat lmowt shahwadan waxaana isugu sii mashquulin waa la dhimanayaa baa ilahay leeyahy subxaana watacaala inaka mayitun wainahum mayituun ilahay wuxuu tilmaamayaa nebi maxamed adiguna waad dhimanaysaa salawaatu ullahi wasalaamu aleyh iyaguna way dhimanaya haddaad adigu geeriyoto ma yagaa waaraya baa ilahay leeyahy subxaana watacaala cagsigeeda waxaa laynoo tilmaama si aad nafta u controli karto inaad u sheegto meel ay shahwaadkeedoo dhan ka helaysaa inuu jirto janno la yidhaahdo kow qur-aanka markaad jannada akrido meel kasta ku aroorta khaalidiina fiiha iyo jannat alkhuld iyo jannatu cadnin iyo daaru salaam iyo daaru qaraar iyo ilahay magacyo badan buu ku tilmaamay oo dhammaantood sheegaya inay waarayso waa daartii nagaadiga waa daartii nabadda aan waxba iska bedelaynin waa daartii sugunaashiyaha khaalidiina 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 baa daba taala khaalidiina bilaash maaha waxaa la ogyahay min fitra albashariya inay kamid tahay inuu jecel yahay waaritaanka ilahay wuxuu leeyahy halkan maaha haddaba tii lagu waarayay tan waxaad u baahantahay intaad joogto siraac baad ku jirtaa loolan baad ku jirtaa ee loolankan inaad adkaysato naftan aad xukumi kartid oo kow geeri aad u sheegto inay dhimanayso dhadhan badan shahwadu yeelan mayso haddaad u sheegto inay caawa kaa bixi karto berri inay dhiman karto kuwii adiga kaa horreeyay inay dhinteen dadba wadadan inuu wada maray inaanay geeridu kala qonin waa professor iyo waa sheekh iyo waa caalim iyo waa mid yar iyo waa mid weyn nin waliba inuu dhimanayo inaad nafta u sheegto meeshay waxaan oo dhan ka helayso inuu yahay maxay aakhira inay tahy jannada lagu waaraa inay aakhiro jirto culimadu waxay dhahaan insaanku jacaylka uu jecel yahay inuu sii waaro daraaddeed waa waxyaabaha keena bay leeyihiin maxay xidhiidhka rag iyo dumarka ka dhexeeya ee inuu nasl iyo caruur raadiyo waa waxyaabaha keena bay leeyihin xub ilbiqaadu markuu ogaaday inaanu isagu waaraynin inuu taran ka tago qofku haddii waxba dhali waayo maxaa la dhaha waa goblan oo waa kana maxaa ka goblamay yacni waxaa la tilmaamaya kaanamaa jiritaankiisi uu dabar go-ay oo aanu baaqi lahayn marka waxaad rabtaa xataa haddaad adigu dhimanayso inaad kasii tagto maxay wax baaqi noqon karaya haddaad adigu dhimanayso inaad kasii tagta maxay magac waarimay sida war ha kaa hadha bay idhahdeen inaad magac kasii tagto ilahay wuxuu ina baray nasli iyo waxaan oo dhami waa ziinat lxayaati dunya inaynu kuwa khayr la raadino waxa kaloo layna baray magacaynu ka teginaana mid khayr qaba inuu noqdo wajcal lii lisaana sidqin fi laakhirin ilaa uu magac fiican yani magacaad ka tegaysa inaanu magac shar noqon iyo macsiya inuu noqdo maxay mid khayru ku jiro iyo wanaagga inaad astaan u noqoto
inuu noqdo magaca aad ka tegaysa xub alburuuz insaanku inuu muuqdo uu jecel yahay laakiin waxaa layna baray wajcalnaa lilmuttaqiina imaama imaamu ahlu taqwa inaad noqon karto inuu kaa noqdo kaad ku dadaalayso waxaa layna baray meesha loolanka u baahani yacni nafta jacaylka loo qabo waa waxa keena xaasidnimada iyo anaaninimada iyo kelinimada iyo waxaan oo dhan waxa keena laakiin waxaa layna baray wax kale inaynu ku tanaafusno inaan noloshan ku tanaafusin وفي ذلك فليتنافس المتنافسون baa ilahay intuu janno ka waramay alla subxaanaه watacaala xleena marka shahwaatu nafsigu adduunkan kuma buuxsamaan meesha ay ku dhammaystirmaan waa janno meesha ilaahay leeyahay wax kastoo aad doonto ayaad helaysaa waxaynu u baahanay waa mulki laa yablaa buu ibliis sheegay boqortooyo aan dhammaanaynin ilahay wuxuu rabaa subxaanaه watacaala inuu inoo tilmaamo tan adduunku inay dhammaanayso واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا إلهي وحو إنه الشيخ سبحانه وتعالى ورنولشنا الدنيا وردمي waa sidii biyaha cirka roobka ka yimaada ee dabeetana dhulka ku qasma ee dabeetana geedaha soo saara ee geeduhu haddana markiiba ay dhammaadaan oo burburaan oo xashiish dabayshu qaada ay noqdaan caruurta iyo maalku dhammaantood baa ilahay leeyahy subxaana watacaala waa dhaldhalaalka adduunyo un laakiin الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الباقيات الصالحات سبحان الله يا الحمد لله يا وناجيده هرية قوس بإله اكتسل وجه عليه بالي وحيلاهي نوشيغ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وحال الشيخ سبحانه وتعالى وروحه وقاتان الدون كان دمانتي بمرك الله يسكت ضرب waxa weeyaan baa ilaahay leeyay cayaar iyo lahwi madadaalo aan idhaahno culamada qaar waxay yidhahdaan lacbiguna waa waxa caruurta lahwiguna waa waxa dadka waaweyn labada waxay yidhahdaan lacabkaaba laga yaabaa inuu qasdi ka dambayn karo biological qofku inuu koro oo uu u baahan yahay laakiin lahwigu waa waxa dadku waktiga iskaga dilaan waa intaa iyabaa la yidhi waxa kale dheeri waa ziino un inay tahay dhaldhalaal inay tahay iyo watafakhuru baynakum watakaathuru fi lamwaali walawlaad kamathali gaytin acjaba alkufaara nabaatuh ثuma yahiiju fataraahu musfara ثuma yakunu xutaama wafi اlآakhirati cadaabu shadiid wamagfiraة min allahi waridwan wama alxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur nusuustan qur'aankii waxa ay tilmaamaysa shahawaatu nafsiga inaynu xakamayn karno oo keliya marka aynu garanno adduunkan iyo qiimaha uu leeyahay marka aynu garanno in laga tegayo marka aynu garanno haddaad ururiso oo aad ka u maal badan noqoto inaad god ka gelayso marka aad garato haddaad dunida oo dhan ka taliso berri in god ku hurran yahay xabaal yarna lagugu daboolo markaad ogaato waxaan oo dhamay natiijaday leeyihiin waxay noqonaysaa inaad ibliis warkiisa dhegaysanin ah shajarati alkhuldi iyo wa mulki laa yabla geedka waaritaanka iyo madaxnimada ama hantida ama maalka ama boqortooyada aan dhammaanaynin inay waxaasi oo dham yihiin wax dhammaanaya waxaad garanaysaa inaad barato markaa inaad nafta la tacaashid oo aad taskiya u samaysay naftu ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa mar inay tahay ina nafsa la amaaratun bisu ila man raxima rabbi inay xumaha dadka farto waa marka canaanka waa marka hogaanka loo sii daayo ee waxay doontaba la yidhahda maxaad u baahantahay naag baad u baahantahay soo caawa cunaad u baahantahay cun wax walba marka loo sii daayo waa amaara bisuu haddaad saa u dhegaysato marna waxaa la yidhi waa lawaama waxay tahay baa la yidhahdaa marka ay xaq iyo baatilka kala garato ee isku dayda inay xaqa raacdo ee haddii gafafka qaar ka dhacaanna
intay dib u toobad keento mid canaan badan oo nadamku la saaxiib yahay oo ka toobad keento xumaha markay gaadho waa nooc min atarbiya markay heshaabay halka soo gaari kartaa xad bay gaari kartaa ay noqoto mutma'ina nafsi almutma'ina tuxasiloon oo qadarka raalli ku ah oo ilaahay wuxuu u qoro aaminsan oo mutma'ino ilaahay warkiisa aqbalaysa oo shaytaan iyo warkii aan u dhegtaagaynin xagkaana way gaari kartaa laakiin masaafo dheer weeyaan intaa dhexdooda waa masaafo aada u fog oo u baahan tarbiya tiro badan leh oo u baahan inuu qofku nafta la loolamo sala nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamaya xadiidku tirmidi warinaya xasano saxiixa uu ku tilmaamay sheekh ilalbanina uu sugayo ina likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati lmaal ummad waliba fitnay leedahay iyo wax lagu itixaamo aniga ummadayda waxyaabaha lagu itixaamay ugu waaweyn waxaa kamida buu nebigu yihi xoolo walidalik buu saxaabada nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyagoo baahnaa oo baahidu ay ka ahayd simo aada uga muuqata iyadoo saxaabada ay jireen intaasoo saxaabi aan guriba lahayn ee masaajidka dacalkiisa ama xaggiisa dambe iska seexda ahlu sufa masaajidka dacalkiisa dambe iska seexda iyagoo ay ahaayeen dad inta ugu badan leh ay go' qura leedahay jaabir ibn cabdillahi xadiidkii bukhaari asarku warinayo tilmaamayey ee nagama mid ahayn mid laba go' lahaa buu leeyahy yani waa sanaaduuqdan dharka inoo toonsan maaha waa laba midh nin lahaa naguma jirin buu leeyahy waxaanu wada haysanay buu leeyahy go-go qura ama hal mar oo keliya iyadoo dadka badh ninka iyo gabadha isqabaa aanay wada haysanin mare ay salaada ku wada tukadaan ay tahay in midkoodba mar tukado si uu ka kale marada ugu u siiyo inuu cawradoo dhan ku asturo si uu u helo iyagoo nolosha noocaasiya soo maray oo guriga nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aan laba bilood dab laga shidin dabba la shidan ayuu haddana wuxuu nebigu lahaa ina mima akhaafu calaykum min bacdi waxyaabaha ugu weyn ee aan idinka cabsanayo aniga gadaashay waa in ilaahay idin fura buu nebigu yihi zahrat addunya wa ziinataha nolosha dhaldhalaalkeeda iyo macmacaankeeda in laydin furo ayaa ah waxyaabaha ugu weyn aan idinka cabsanayo buu nebigu leeyahy yani wuxuu nebigu u arkay inay nooc min alfitna tahay nooc min alimtixaan inay tahay imtixaani hadihi lumma ummadda tan shahawaatu nafsiga had iyo goor ku dhibka ahi inuu kamid yahay maalkan la ururinayo ee xalaal iyo xaaraan aan loo kala eegeynin ee mujarad jamcintiisu ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya zuyina linnaasi xubu shahawaat dadka waxa loo qurxiyey baa ilahay yihi subxaana watacaala xubu shahawaat ashahwaat waa masdarun uriida bihi mafcuul baa looga jeedaa yani ashyaagii la jeclaa ayaa loo qurxiyey waxaa la yidhaahdaa hadday macsi tahay shaytaan baa qurxinaya inta xalaashaana ilahay baa u qurxiyey zuyina linnaasi xubu shahawaat min annisa walbaniin walqanaطir almuqanطarati min aldahabi walfida walkhayl almusawamati walancaami walxarf dalika mataacu lxayaati اdunya nafta dadka waxa loo qurxiyey baa ilaahay leeyihi subxaana watacaala waxyaabaha shahawaadka baa loo qurxiyey oo uu kamid yahay haweenku masalada haweenka iyada qisatu yuusuf baynu kaga hadlay iyo caruurta iyo baa ilaahay leeyihi subxaana watacaala walqanaطir almuqanطara min aldahabi walfida qintaarku waa wax lagu miisaami jiray ama wax lagu qiimeyn jiray lagu qiyaasi jiray laakiin waxaa la tilmaamaya halka kan oo looga jeeda alamwaal almukadasa xoolaha laysdul tuule la ururinayo ee min adahabi walfida lama odhanin dahabka iyo fidadaa laydiin qurxiyey lama odhanin laakiin waxaa la yidhi buurbuurnidooda iyo inaan in kugu filan aanad ka qaadan aada wado una tuusho xagga dambe aad ku gurto un taas baa laydiin qurxiyey insaanka lama qurxoona intuu cuni lahaa cabi lahaa ku hoyan lahaa hadduu helo isma odhanayo iska fadhiiso waad haysataa waxaagii
wuxuu jecel yahay inuu ururiyo oo ay badato la dhawa billionaire kale kasii noqdo oo haddii dhulka oo dhan aad hesho aad isweydiisato low dayaxayaa leh aanu kugu filaanin walidalik nabigu wuxuu lahaa afka bini aadamka ma buuxiyo maxay ciidda mooyaane insaanku hadduu laba waadi oo dahaba leeyahay baa la yidhi labtagaa thalitha mid saddexaad buu daydayi lahaa waa nahin waa hunguri badne waa hunguri doonaya maalka uma rabo inuu ku intifaacsado maalku wuxuu ahaa intaad ku intifaacsanayso sax inaad raadiso ummadaada adiga dadka kugu xidhan waxaad ku intifaacsanaysa inaad raadiso laakiin shahwatu nafsigu iyadu waxay sheegaysaa inaad biiriso una ururiso walidalik ba ilahay wuxuu leeyahy walqanaatiir almuqantarati min aldahabi walfida dahab iyo fida qura maaha waxaa naftu jeceshahaye waa alqanaatiir almuqantara maalka mukadaskee la ururiyee la tuulay ee la tiro badiyey inuu noqdo alqanaatiir almuqantarati min aldahabi walfida walkhayl almusawama walancaami walxarb iyo baa la yidhi alkhayl almusawama ay almucallama aw asaa'ima fardahan la foofiyo ee mujarad foofkoodiiyo intaa lagu raaxaysto aw almucallama la tarengareeye wax la baray aw yani kelimada ilaa 3 macnay mufasiriintu ku sheegay ayan kaanat waxaa la tilmaamayaa inuu yahay dadkan la jeclaysiiyey xataa xaajadii rasmiga ahayd haddii aanu u wadanin faraska qurux iyo ziino inuu uhaysto iyo in la daawado iyo in la beratansiiyo iyo in lasii eriyo iyo in lasoo eriyo inay kamid tahay waxyaabaha naftu jeceshay maanta bal yurub eega waxa faras jooga iyo waxa cid ka shaqaysa iyo waxa gaari lagu sida iyo waxa dad u maydha iyo waxa ka shaqeeya waxaasoo farasa inta ugu badani waa un dagaal la cidi kuma gasho cidina ma rarato cidina ma fuusho waa ziino iyo haddii laga tegi waayo qamaarkii lagu khamaarayay oo isna shay kaloo muxarama loo sii adeegsanaya ilahay wuxuu tilmaamayaa waa laydin jeclaysiiye waxaasoo dhan iyo walxarti iyo walancaam iyo waxaasoo dhan beeraha xoolaha waxaasoo dhan baa la yidhi laakin ilahay wuxuu ku gebagabeeyey waxaasoo dhan marka la isku daro waa mataaci alxayaati dunya waa nolosha adduunyo in yaroo lagu bidhbidhsado laakiin ilaahay agtiisa waxa ah ayaa ka khayr badan intan oo dhami waa wax yar marka loo eego alle subxaana watacaala agtiisa waxa ah idan nafta bini aadamkii wax badan bay jeceshahay wax badan baa loo qurxiyey waxa laaliya waxa shahwaadkii waa ashyaa muzayan oo la qurxiyey waxa quruxda u dheeriya intaasi inuu shaytaanna dabada ka wado oo isaguna lug iyo farasba inuu fuushan yahay oo aanu xarakada iyo dhaqdhaqaaqa daynaynin oo uu rabo inuu xagga kan kugu riixo haddii aadna aada nafta u dhega nugulaato shaytaanna uu maceed noqdo markaasi uu sii wado shayaatiinul insigii kalena iyana ay dhanka kale kaaga jiraan khatar wey baad ku sugantay markaa waxaynu u baahanay markaa wuxuu yahay inaynu nafta ilaalin karno oo nolosha waxay uga baahantuun inay ka qaadato inaynu ku tarbiyeyno cunada maxaa wax loo cunaa waxaa wax loo cunaa inaad jidhkaaga ilaashato socankaa maaha caafimaadkaaga inaad ilaashato xoogeysato basharku maanta wuxuu marayaa inuu cuno ilaa iyada ku xanuunsado yani qasdigii intay dhaafto oo ay ku badato mid macaan iyo mid qadhaadh iyo mid walba intuu liqo oo wado hadhow inuu baado haddana wuxuu isku yareeyo oo haddana dib usii wado asalku wuxuu ahaa waxay nagaga filaa shahwadaasi oo dhan inaynu ka fekerno war cunada maxaad uga baahan tahay waxaad uga baahan tahay inaad ku caafimaad qabto jirkaaga ku dhisnaado oo aad ku cibaadaysato idan in lagu koobo waxaad cunayso intastan inaad isweydiiso haween maxaad uga baahan tahay inaad intan ku koobnaato inaad isweydiiso nolosha oo dhan naftu waxay doonto inaanay kugu wadin shaqo maxaad uga baahan tahay inta aad ku noolaanaysa nafta iyo carruurta iyo reerka inta ku wadata inaad ka hesho waxaas inaanay markaa ku dhaafinin asalkaaga iyo wixii lagu abuuray iyo ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa iyo nafta tani meeshay ku raaxaysan lahayd inaad rumaysato inaanay halkan ahayn naf bini aadam oo halkan raaxo ku qabtaa ma jirto dadka kuwa ugu hanti badan baa ugu maxay ayaa ugu dhib badan ninka maanta ugu bilyaneersan
ayay tviyadu waxay soo daayeen iyadoo ilmadu halkaa halkaa ka dacayso. sawir saaxib microsoft dakhligiisa laguma xisaabiyo saacadiya waxaa waa minute mise second income waxaase sheegaan. waxay ugu wardambeysay dhowr iyo sagaashanadii isagoo $500 maraya beer minute mise beer second incomekiisa daqiiqad kasta lacagta soo gashay. maxkamadda waxoogaa yar ku xukunta waxaa la yidhi shirkadda la kala yaro jebinaya. tv-gu soo fadhiistay isagoo oohin afka kala hayo labadaa ay ka dacayso. hadda isaga iyo 20 qarniyo dambe wuxuu dhali doono bale beeshuu la noolyayba waxay dhasho waxa laga yaaba waxay cuni lahaayeen inuu haysto more than 90 billion buu markaa haystay. haddana in yaroo la kala jebiyo oohin ay halka kala dareereysaa. naftani ma dheregto marka dad bilyaneerka ugu dambeeya noqotay waa daaliun waxaad kasii qaadaa waa daal. inta ugu hantida badan le ayaa ugu hurda yar oo ugu warwar badan oo maalin walba wadnaha qaybigooda marka la yidhaha marka baa degay ama waxba halkan ka yaro khasaarayba barasharkaa ku kaco dhakhaatiirtaa la geeya. adigu waxaa laga yaabaa inaad leedahay maalkaa qaaruur oo kale maan yeesho sidii kuwii qur-aanku sheegayay ee lahaa ninka kan waa loo nimceeye waa kan. maalkaasi dad buu dhib ku hayaa. maalinta in yar khasaaro, maalinta in yar boorsadu isbedesho. tv-ga adigu warka intaad iska dhegaysato boorsaduna halkaa dhex carartee la yidhaahdo waxbaa hoos u dhacay waxbaa kor u kacay wax badan adigu ma dareentid. laakin dad baa marka la yidhaahdo dhowr point bay hoos u dhimatayba wadnaa badhgo ah. yani naftii shahwaatu nafsigii baa la raaco la iska tiro badiyey. waxay ahayd inaad garato war nolosha maxaa lagu falaya, maxaad uga baahan tahay nolosha tan. waxaad uga baahan tahay markaad xadido nafta inaad u talisid markaa. idan ma lihin shahwaatu nafsiga kabti ha lagu sameeyo ama hal la gooyo ma lihin. waayo islaamku raahibnimo ma qabo iyo nolosha in laga guuro. laakiin wuxuu qabaa in la tandiimiyo oo zuhdi iyo waracnimo iyo diin lala yimaado oo la garto nolosha tan iyo inay gabagaboobayso oo la garto naftu inaanay kuu talinin inaad adigu u taliso oo aad garato baahidaadu waxay tahay noloshana waxa baahidaadu tonaad ka qaadato. inaad saacadahaaga iyo noloshaadoo dhan u bixinin guriga kuraasidiisa inaad bedesho. marka mushaharku kuu kordhaba gaadhigu baad bedelaysa. marka lacag badan soo xarayso haddana guriga daahiyada ku xidhan iyo kuraasdun baa la bedelaya. ma waxaad u nooshay inaad kursi iyo daah ka shaqayso? adigu isma lihid. laakiin xaqiiqadu waa taa. waayo awariskan tirada badan la aad shaqaysiya intani waxay soo kordhiyeenun in reerka kuraastii hore laga daadiyo, daahiyada hore in laga guro iyo wax lamida un bay soo kordhiyeen. noloshaadu waxay ahayd inay ka qiimo badnaato daah bedelkii iyo kursi rabadii iyo kolba sariir ku bedel inay ka qiimo badnaato. walidalik ayaa dadkii naftooda xakameeyey. nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi iska seexday oo soo toosay oo ay ku taalo xasiirkii salligii yaraa uu ku sooxday xariijimihiisii ayay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisi aan furashir kuu soo samayno oo aad ku seexato. oo anigii adduun maxaana kala galay buu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. miyaan anigu ahayba sidii nin geed harsaday oo dabeetana dee ka tegayo nin raakibo oo raaxiladiisii intuu geeduun hoos harsaday ka dhaqaaqay mooyaane miyaan anigu wax kala ahay buu nebigu ku tilmaamayay. idan waxay leenahay naftu waxay u baahan tahay in la xakameeyo. waxay u baahan tahay in caqliga la isticmaalo. waxay u baahan tahay wax kastoo aad qabanayso inaad su-aal iska weydiiso maxaan uga baahnay. inaanay naftu ku wadin amase bulshada hareerahaaga taagani inaanay kuu noqonin midaad ku dayato un oo markaa bulshada hareertaada joogta ama inaan tv-gu ku hagin iyo iclaanaadka ka soo baxa oo markaa tv-ga wax cusub ku aragtaba ama iclaan cusub soo baxaba aanay naftu ku odhan adigana kaa waan u baahnay. waxaan dariska kusoo koobaya qisatu aadam waxaanu soo qaadano 2 masalo ah inaynu garanno meelaha aynu u jilicsannahay. awowgeena aadam ahaa halkii ibliis uu ka galay innagana ina dayn maayo inaga gelaya. aadamna waxaa qisadaa loo soo mariyey in tadriib rasmiga la siiyo inuu wax ku qaadano. waayo isaga bashar hore oo ka horreeye u arkayay ma jirin. isagii baa bilaabay. isagana ilaahay subxaana watacaala trainingkaas buu siiyey. waxaynu markaasi u baahannahay waxaynu la noolnay ummad maadiya. waxaynu la noolnay ummad inaga qiyam gedisan.
waxaan la noolnahay meel shahwaadku ay xagga sare marayaan, cirka ay marayaan, ama miqyaaska wax lagu qiimeeyaba uu yahay shahwatu nafsiga. waxaan leenahay meel runtii khatarteedu ay aada u badan tahay. sidaa ogeed waxaynu u baahan nahay inaynu baranno nafta sidii aynu u hogaamin lahayn, sidii aynu nafta khayrka u bari lahayn, ugu train garayn lahayn, sidii aynu nafta waxii shahwaati ay leedahay ugu tilmaami lahayn ama se ugu sheegi lahayn inta ka khusayso oo qura in ay ka isticmaasho. haddaad taa ku guulaysato yani wax badan oo diintaadii kamid a ayaad ku guulaysatay. haddaad as'iladaas si fiican uga jawaabi kartid wax badan oo diintaada kamid a ayaad ku guulaysatay. khayru lkalaami maa qalla wadal. hadal ku kooban waa waxa la rabana tilmaama ayaa ugu fiican buu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. waxaan kusoo koobayaa warkaygu wuxuu yahay masalada tan ku saabsanen maanta uu ujeeday inaynu garanno naftu meelaha ay u jajaban tahay ee laga wadi karaa inay kuwaasi yihiin qur-aanku uu sheegay iyo wixii la halmaala, iyagana inay wax allaaliya dhibta tirada badan le shahwaatu nafsiga ku xidhan oo dhami inay ka ratibanto. haddaad meelaha gufayn karto si fiican aada u gufayso in nolosha inta kaloo dhanna la xukumi karo. hada ma aqul wabillahi tawfiiq.